maxaa cusub midkii kalena hadlahaye jaqjaqlaynaye mid waalan buu ahaa waxaan dilaynaa waxaa la xoogahayaa he was so stupid runtii wuuna og yahay in wadanka laga saarayo kii ugu dambeeyna Djiboutian buu ahaa yes wuxuu ahaa familka aniga ninkaan u dhaxay waa nin Faransiisa waa nin madow waa nin jecel inay Soomaaliya unité fraternité iyo waxa kale lagu magacaabo égalité sidii inay Faransiisku fahmeen waryaa anaga fahmnay égalité wax leeyahay dagaalka Soomaaliya ma dhamaanayo ilaa la yeelo égalité waa maxay égalité waxdi macnaheedu waxa ma taqaanin waxna ma idin baran gurigina baranbara ku jirta kan ugu roon ee aniga caawiladayo gurigiisa waxa ku jira wariri baranbaro dooli tajran guriyada jiran oo aan shaqaysan baatin waa ogaa iskuul gurigaaga inuu ku jiro dooli iyo waxa soo dhan waxa degantiin meel foolxun waxa ag joogtaan dad idin foolxumaynaya yes gabadh baa caawil hadlayso wiil baa hadlaya they all have no self-esteem Rahima lay dhahaa Muhara lay dhahaa fucking shit baa lay dhahaa waxa degantiin meel foolxun ama meel foolxun degno ama aniga gurigan ku noolahay degno ama qof walba meeshuu ka yimid degno waxa idin haysta waa dhibaato idinka weyn waxayna u baahan inaad fikirtaan fakarku warmay maqashaan waryada fakarku wuxuu ku imaan karaa in dadku sheekaystaan oo mabda iyo aqli isweydaarsan aniga burweyne lama dagaalamin wax aniga iyo wiilka ama gabadhii hadda baxday Sofia Loren naga dhaxay ma jirto waxa loo baahan yahay dadku inay isdhageystaan ilaahay wuxuu qofka siiyay waxa ka hadlay from a very logical humanistic point of view qofku ilaahay wuxuu siiyay waxa la yiraahdaa 5 gabdhuuna waxay leeyihiin 6 dhageysta arka iyo waxyaabo kale laakiin fahamku waa very qaali waa wax qaali ah ما يو عبد الفتاح وحوار رد كسارين أنا متشالي تذكر الجعبري وهذا هيا وأنا بحيا هذا ربطه صخ يشرين كيمان يسو وقت الحاضر كأنك حلقة الصهارة وحوه أنا دراسة كصبين حالة لوكا كجتا إن أن ترى كبحنا ترى فرصنا إن كبحنا طبعا قامها أنك مليهن سياسيين iyo arimahaas dadka u xilsaaran ayaa iskale fulinteedii laakiin taas ayaan anagoo si daacad uga bixinayno aqoontaan tiigsanayno ayaan gudbin doonaa marka taladan waxaad u gudbinaysaan wasiirka gaashaandhigga Maxamed Wala Cabdalla oo meesha joogay Major Yates oo Mareykanka wakiilka ahaa taladaas aad siinaysan shirka saad ogtahay waxaa sponsor gareeyay ama abaabulay isku jir u abaabuleen wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda midowga qaranka iyo qaranka midowga marka talada aan gudbin doonaa iyagan gudbin doonaa dabcan ma u marinaysaa
inay wax qaban doonto oo markaad aragto wadankii maleeshiyaadka jooga qaybaha kala duwan uu yahay dagaalka dhiba ma u malaynaysaa inaad wax ka qaban kartaan dagaaladaas waa waqtigaa sheegi doona mid aan annaga hadda aan wax ka oran kara ma aha laakiin annagoo daacad ka ah aqoontayna tiigsanayna ayaa talada gudbinaynaa marka fulinteedii on the ground dadka jooga qayb bay ku leeyihiin waxyaabahaas oo dhan sida amuuraha dadka ka taakuleen lahaa ay qayb uga qaataan tala bay ku leedahay marka mid annaga nagu xiran ma aha tala bixin aan leenahay marka tala bixinta miyay ka mid tahay inaad dareyskii qaadataan inaad mar kale ciidamadii ku biirtaan inaad hogaanisaan dad ka mida waa dhici kartaa inay ka qayb galaan dadka qaar ka midana ay ku ekaadaan tala bixinta marka arrintaas waqtigaan doonaynaa iyo duruufta qaaska ah ee qof waliba qusaysa colonel cabdiraxmaan ciise oo maxamed xuseen shiine uu raamaayey eritrea ayaa iyana ka hadashay arrimaha soomaaliya kuwa gobolka iyo faragelinta dibadda sida laga soo xigtay wasiirka warfaafinta ee eritrea warbixinna arrintaasi waxay nooga hayaa abuukar maxamed cabdi boston jariidada carabta ee caalamiga ah ee ka soo baxda magaalada qaahira ayaa cadadkeeda ee xadda tirsigiisu yahay 11205 ku qortay warbixin dheer oo ay ka soo xigatay wasiirka warfaafinta ee dalka eritrea cali cabdo ee uu kaga hadlay qadiyadda dalka Soomaaliya isla waqtiga oo ay ku guudiray Susan Rice oo ah wakiilka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay una qabateen in lagu soo rogayo Eritrea iyadoo sabab kaga dhigtay waxa ay ku sifaysay Eritrea in ay ka qayb qaadanayso qalqalgelinta nabadda iyo deganaanshaha dalka Soomaaliya ayaa wasiirka warfaafinta ee Eritrea Cali Cabdo waxa uu mar kale uu cusboonaysiiyay mowqifka xukuumadda dalkiisa ee ay ka qabto qadiyadda Soomaalida waxaana uu sheegay xalka dalka Soomaaliya inuu yahay mid ku jira jamcaha Soomaalida faragelin shisheeyana in aanu ku imanayn Cabdo waxa uu sheegay Soomaaliya in ay marayso marxalad aad u adag isbedelo in ay ka dhacayaan oo kala geeyay ayuu sheegay qaybaha Soomaalida muhiimadda shacabka Soomaalida waxa uu ku sheegay marxaladan in ay tahay sidii dib ay ugu dhisan lahaayeen dalkooda sidoo kale waxa uu sheegay xukuumad dibadda Soomaaliya lagu soo dhisay in ay tahay mid aanan laga aqbali karayn gudaha Soomaaliya golaha ammaanka iyo qaramada midoobay in aanay xaq u lahayn in ay ka sarmaraan xeerarka u yaala caalamka oo aanay ku tuman Soomaaliya ay madax banaanideeda wasiirka Eritrea waxa uu si aadi u cambaareeyay mowqifka xukuumadda dalka Uganda oo haatan xubin ka ah golaha qaramada midoobay oo u fadhida qaaradda Afrika waxaana uu yiri halkii ay ka daafacleed qadiyadda qaaradda ay noqotay markaasi mid u adeegaysa ujeedooyinka iyo ahdaafta dawladda masaalix la iska garanay kulihii mantiqada wasiirka Eritrea waxa uu sheegay xukuumadda ka talisa Ethiopia in ay tahay mid dhinaca kale ka cakirinaysa mushkiladda Soomaalida iyadoo u adeegaysa ayuu yiri dawladda damac gaarihii kalihii gobolka masaalixda Mareykanka ee Soomaaliya waxa uu ku sheegay sida ku cad Sharqul Awsat si xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay ula gashay heshiis shirkad Mareykan ah oo u qabata maamulka arrimaha lacagta taasoo shaabahda ayuu sheegay qorshihii Mareykanka ee Ciraaq xilligii Paul Bremer Abuukar Maxamed Cabdi BBC Qaahira magaalada Garowe xalayto waxaa lagu soo gabagabeeyay xuskii iyo dabaaldegyadii sanad guuradii 11 ka soo wareegtay aasaaska Puntland xafladaasi oo ay kaga qayb galeen telefoon madaxweynaha dawladda ku meel gaarka iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Puntland oo laftiisu ka hadlay oo goobjoog ka ahaa aan idinku wareejiyo Axmed Maxamed Cali Axmed Kismaayo munaasabadan horta waxay ahayd munaasabad lagu soo gabagabeynayo ama lagu soo afjaray guud ahaan xafladihii iyo dabaaldegii ku saabsanaa 1 Agosto oo tan iyo shalay gelinkii hore duhurnimadii shalay galabkii ilaa iyo xalay socotay xafladan oo socotay runtii muddo 4 saacadood oo dhamaatay xalay saqdi dhexe 12 saqbarkii
intii ay socotay runtii waxaa jiray waxyaabo badan oo xusuus gaara leh oo la soo qaadi karo waxa kamid ahaa xiriirad badan oo dibadda ah kuwaas oo marka hambalyo u soo jeedinay maamulka Puntland dadkii xiriirkaas soo sameeyay oo qofka telefoonka soo galay oo khudbooyinkoodii la dhageystay waxa kamid ahaa madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo ra'iisul wasaarihiisa Umar Cabdirashiid Shariif wuxuu aad uga hadlay in ay